kadib muddo 20 sano ka badan oo Soomaaliya ay nidaam la'aan ahayd wadankan ay dagaal sokeeye ragaadiyeen ayaa waxa burbur baaxad weyn uu soo gaaray guud ahaan kaabayaashii dhaqaale ee dalka sida jidadka, dekedaha, garoomada, beeraha iyo wixii la mid ah taasoo kaalin weyn ka qaadatay dhaqaale xumida dalka Soomaaliya oo ay sii dheertahay khasaaraha naf iyo maalba ee ka dhasha burburka jidadka ku yimi. haddaba wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wado qorshayaal ay dib ugu soo nooleynayso kaabayaashaasi. wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay wax badan uga qorshaysan tahay inay ka qabato dib u dhiska jidadka burburay, dayactirka dhismayaasha danta guud, dejinta siyaasad ku wajahan dadka danyarta ah ee degan xarumihii dawladda iyo inay dawladdu qorsheynayso guryo loo dhiso dadka degan xeryaha barakacayaasha. waxaan haynaa himad iyo niyadan haynaa aan ku dhisayno dawladana waxay xooggeeda saartay inay dhisto jidadkii, inay dhisto daarihii dadumay, inay dhisto isbartiibooyinkii, inay dhisto dekadihii, inay dhisto airportkii. intaasna baleenkooda waa haynaa, qorshooda waa haynaa. insha Allah waan ka horgeli doonaa ilaahay idinkiisa. aan damacsanay in guryahan aan dhisno oo shacabka ku jiro inay guryaasha dawladda ay u degi lahaayeen iyo meelaha dawladda. anaga marna qof shacab inuu meel fadhiyo kama saaray. maraan weydiiyey halka ay ku dambeysay ballanqaadkii dawladda Turkiga ee ahayd inay dhisayso ilaa 10,000 oo guri ayuu ii sheegay in hawshaasi ay meel fiican marayso. dawladda Turkiga waxay ballanqaaday 10,000 guri, waxaan isku daynaa in la dhiso. dawladda kalena waxaasay noo ballanqaadeen. darad marka Ingiriiska aan jiro waxaan kala hadlay arrimahaas housing guryaha walajeeda waa xamar aaday dadka u bateen in la nafisiyo la abuuro magaalo cusub ama niyo Muqdisho la xamar cusub la abuuro oo jidadkoodii iskoolaadkoodii isbitaalada qabaan. dawladda yani waxay ka fikiraysaa danta shacabka marna kama fikirayso qof Soomaali ah in banaanka la dhigo. qorshaha aan wadnana waxa waaye qof walba Soomaali guri oo leeyahay inuu dego. dhanka kale wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya waxa uu soo kormeeray dhismaha xaruntii wakaaladda hindisaha ama hal abuurka oo dayactir uu ku socday muddooyinkii u dambeeyay wuxuuna sheegay in dhawaan la hirgelin doono. ugu dambeyntii wasiirku waxa uu sheegay in dhawaan ay qaban doonaan shirweyne ay ka soo qayb geli doonaan maamulada dalka kaas oo ku wajahan dardargelinta dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee dalka. haddana mar lama sii u qaban doonaa bisha tan daqiiqada ilaahay haduu idmo aan isla meel ligi doono sidii dib u dhiska wadanka kaafi u noqon lahaa. wasaaradda hawlaha guud waxay doonaysaa xafiis ka furato meel walba, gobol walba, degmo walba, tuulo walba ay Soomaaliya leedahay gacanteeda gaarto. ahna iskoolaadka la dhiso, jidadkii la dhiso, airportkii la dhiso, dekadii la dhiso. waayo markii ay infrastructure oo xogsado ayaa shaqaale la helayaa, ayaa horumar la gaarayaa, ayaa wadankii oo ku kaaftoomaya gargaarka la sheegayo. Aadan Jaamac Axmed, Somali News, Muqdisho.